بسم الله. أيها الأحبة، أحبابي قصة ay soo martay maraan imaam ka ahaa masaajida kamid ah sanado badan ayaan khadiib ka ahaa ilaa aan rabitaankeyga ugu soo tago. qisadan waxay ku saabsan tahay haweeney istaagi jirtay ilbaabka masjidka ayadoo dadka si hoos wax u weydiisan jirtay, welina waxay ku adkeyn jirtay weydiinta. mar walba ay dadka soo baxaan waxay ku arki jireen ilbaabka masjidka, waxay awoodaan ayay siin jireen maalinka jimcaha. dadka ayaan weydiiyey, waxay ii sheegeen inaysan imaan ilaa maalinka jimcaha mooye, dadkan waxay awoodaan ayay siin jireen. ilaa ay dadka in badan ku arkaan ilbaabka masjidka, dadka qaar waxay bilaabeen ilaahay ayaan ka magangalnay in ay waxay siin jireen dhibsadaan. maalin aan khudbada dhameeyey kadib markaan salaada sunnada tukaday ayaan ka baxay ilbaabka imaamka, waxaaba ilbaabka taagan haweeney sugaysa. فبدأ بعض الناس نسأل الله العافية والسلامة يبخل. وفي يوم بعد أن خطبت الجمعة وانتهيت من السنة وخرجت من باب الإمام إذا المرأة أمام الباب تنتظرني. adiga miyaa imaamka masjidka? haa. waxay igu tiri dadka markii hore wax ay siin jireen, laakiin maanta qof wax isiiya ma jirin. ilaahan ku dhaartee waxaa iga dambeeya caruur aysan jirin, cid waxay xirtaan iyo waxay cunaan siinaya aniga maahee. anigana ma shaqeeyey, mana awoodo inaan shaqeeyo, mana awoodo inaan caruurteeda ka tago, mana imaado ilaa waqtigan maahee ilaa aan caruurteeda soo nidaamiyo kadibna aan dariskeyga ugu soo tago si ay igu xifdiyaan ilaa aan ugu soo laabto. dariskeyga naftooda waa fuqaro, waxaan wax yar ahayn ma helaan. waxaan maanta caruursado ayaan caruurteeda cunto uga dhigaa. waxaan ku dhahay walaasheeda, haddaan annaga ku siino mise dad kale. marka hore ilaahay wax ma weydiisatay intaadan bini'aadan wax weydiisan ka hor? intaadan bini'aadan soo dhexgalin ka hor alla dhankiisa ma u carartay? waxay dhahday ilaahay waan caabudaa, waajibaadkan waa la imaadaa. هل لجأت إلى الله قبل أن تلجئي إلى الناس؟ وهل سألت الله سبحانه وتعالى قبل أن تذهبي إلى الناس؟ قالت إني أعبد الله سبحانه وتعالى وآتي بالفرائض. قلت عليك بالسنن، عليك بالنوافل. aan ku dhahay sunnooyinka ka tagin, waxaad ogaataa waxa ugu weyn oo risqiga lagu helo waa inaad alle dambi dhaaf weydiisataa iyo inaad badiso istighfaarta iyo laa xawla walaa quwata ilaa billaah. ilaahan ku dhaartay ilaahay wuxuu kaa arsuqayaa meel aadan filin, laakiin bishardi inaad ilaahay ugu baqdid si muuqata iyo si qarsoon. istighfaarta adiga ilmahaada la imaada. gurigeedii ayay u laabatay, waxay bilowday in ay alle dambi dhaaf weydiisato maalinka jimcihii oo dhan. jimcihii xigay masjidka ilbaabkiisa ma aysan imaanin, ilaa jimcihii labaad iyo saddexaad ma aysan imaanin. waxaan bilaabay inaan daneeyo inaan ogaado xaaladda haweeneyda, intaasoo cibro iyo waanaqaash u tahay dadka. waxaan weydiiyey ilaa aan xiriiriyey dariskeedii, waxay igu dhaheen gurigii way ka guurtay iyada iyo caruurteeda. waxaan ku dhahay waxay ahayd faqiirad, sidee ku guurtay? waxay igu dhaheen subxaan allah, si kadis ah ayadoo xaaladda usoo sheegtay ku jirto. waxay nagu dhahday imaamka masjidka ayaa igu dhahay laasim istighfaarta iyo laa xawla walaa quwata ilaa billaah. فقلت لهم إنها كانت فقيرة كيف رحلت؟ قالوا سبحان الله العظيم. فجأة وهي على الحال التي أخبرتها بها، وقد أخبرتنا أن إمام المسجد قال لي إلزم الاستغفار والزمي لا حول ولا قوة إلا بالله واتق الله في سرك وفي علانك. si hoose isa muuqata ilaahay uga baq. waxay noqotay mid aan ka tagin istighfaarta ilaa xawla walaa quwata ilaa billaah. ilaa isbuuc oo dhan xitaa ilmaheeda ayaa la istighfaarsanayay. ilaahan ku dhaartay maalmeer gudahooda ilaa ugu yimaado in adeerkeeda uu soo nootay, ayadana ay ogolaatay, wuuna guursaday. in adeerkeeda waa dadka ugu qanisan riyaad, bal waxaa lagu tiriyaa dadka ugu qanisan sacuudiga oo dhan. ninkii ayaan la hadlay, waxaana kula hadlay moobilkeyga, waxaana weydiiyey xaaladda haweeneyda. wuxuu igu dhahay hebel miya? haa. way ii sheegtay qisadaada. ilaahan ku dhaartee ma ahayn mid ku fikiraya guurkeeda, mana aqoon ilaa aan habeenada ka mid ah aan hurday. waxaa ii imaaday qof hurdada iga kicinaya, iguna dhahayo aad heblaayo iyo caruurteeda si ilaahay wuxuu ku siiyey. waxaan weydiiyey hooyo iyo walaalaheyga qofta ay tahay haweeneydaas. waxay igu dhaheen waa haweeneydii uu furay hebel.
waxay haysato ma lahan waxay degan yihiin magaalo hebel waan aadnay aniga iyo hooyo waxaan u qaadnay cunto iyo cabitaan اذهب إلى فلانة واحتوي أولادها وأعطها مما وسع الله به عليك. فسألت أمي وأخواتي عن هذه المرأة فقالوا إنها أرملة فلان وإنه لا كاسب لهم وإنهم يعيشون في المدينة الفلانية. فارتحلت أنا وأمي وذهبنا لهم وقد أحضرنا معنا شيئا من الطعام والأكل والشراب. فلما جئنا markaan imaano una soo galnay gudaha guriga ilaahay ayaa idinkiin soo diray mana awoodo inaan hurdo ilaa aan idinka imaado ee maxaa sameeynayeen waxay igu dhahday waxaan laasimnay wuxuu imaamkana amray istighfaarta ilaa xawla walaa quwwata illaa billaah markaan damacnay inaan baxno hooyo ayaa igu tiri wiilkaygiioo miyaada ka faa'iidaysanaynin gabadhan ajirkeeda way da'yar tahay waana gabar wanaagsan oo qurux badan ee guurso waxaan ku dhahay u laabo iina doon waan u laabana way ii doontay waana guursaday waxaan siiyey guri aad u weyn arrinkan waxay ku heshay fadliga alle iyo laasimitaanka istighfaarta ilaa xawla walaa quwwata illaa billaah ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu naga dhigo kuwo alle u cararo intaysan ibni aadan u cararin بفضل لزومها للاستغفار وفضل لا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يلجؤون إلى الله قبل أن يلجأوا إلى الناس. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.